waa ceelka ka gadaaleeyo buurta ayaa lagu akhrinayaa laba aayadood ee u dambeeya suuratul baqara iyo suuratu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda tilmooni production soo dhowaada waxaan idiin wadnaa qiso aad iyo aad cajiib u ah waxaana rajaynaynaa inaad ka heli doontaan qisadan haddii aad ku soo gaarto qisadan oo aad dhegaysato fadlan like garee share garee oo waxaad gaarsiisaa asxaabtaada haddii aad ku cusubtahay channelka tilmooni production subscribe saar oo furo gambaleelka si qisooyinkeena badan ee wanaagsan ee soo socda aysan ku dhaafin qisadii laba wajiile ayaa la yiraahdaa ciwaanka qisada haddii aad ku daasheen qisooyinka haafka ahaa ama gaagaabnaa maanta waxaan idin wadnaa qiso dhammaystiran oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan wiil ayaa hooyadii u dardaarantay waxa ay ku tiri wiilkaygiiyow hala saaxiibin laba wajiile wiilkii waxa uu ku yiri hooyo sideen ku garanayaa hooyadii ayaa ku tiri isaga ayaa isku kaa sheegi doono muddo kadib hooyadii waa geeriyootay wiilkii aad ayaa uga murugooday wiilkii waxa uu iska iibiyey gurigii waxa uu soo qaatay rati iyo hub markii uu wadada marayay waxa uu arkay nin wadada dhinaceeda jiifo ninkii lugta ayuu ka jaban yahay ninkii ayaa uu lugtii ka xiray ratigii ayaana u saaray sheeko ayaa dhex martay ninkii ayaa uu weydiiyey waa maxay qisadaadu ninkii ayaa ku jawaabay aniga iyo saaxiibaday dagaal ayaan galnay dagaalkii ayaan ku dhaawacmay hase ahaatee saaxiibaday halkan ayaa iga carareen adigana waa maxay qisadaadu aniga waxaan ka soo tegay miyiga waxaan u socdaa magaalada hooyaday ayaa ila dardaarantay oo ay tiri hala saaxiibin laba wajiile mana garanay laba wajiile waa aniga ayaa ugu warceliyey waa uu iska qoslay danna kama gelin jidkii ayaa ay hayeen ilaa ay ka oomaan waxa ay ku leexdeen ceel meesha ka dhowaa ninkii jabna ayaa yiri aniga ayaa ceelka gelayo kii kale ayaa u diiday oo ku yiri waad jaban tahay aniga ayaa biyaha soo dhaaminayo markii uu ceelka galay ratigiina qoorta ka xiray ayaa ninkii u soo tuuray xarigii oo ku yiri waa kaas xarigaagii ee macsalaamo waxa uu yiri iga saar ceelka maalkan aan wato iyo hubka qaadee waxa uu ku yiri si aad ii disho ayaad rabtaa kuma aan dilayo waa ballan iyo ahdi iska iloow waxaas horey ayaan kugu sheegay in aan ahay laba wajiile waana uu iska tegey miskiinkii ceelkii ayuu ku dhex fakeray dardaarankii hooyadii iyo sidii ay ugu caddaysay isaga ayaa isku kaa sheegi doono ayuu dib u xasuustay iyo sidii uu u rumaysan waayey ilaa waa uu isku sheegay ceelkii ayuu ku nagaaday habeenkii waxa u yimid shimbiro waxa ku jiray laba tuke oo jinni ah ceelka korkiisa ayaa ay ku sheekaysteen kii koowaad ayaa yiri sanadkan waxa aan qabtay waxa aan sixray gabadha boqorka aad ayaana u waalatay waana fudeed sida ay ku bogsoon karto waa sidee ayuu weydiiyey tukihii kale waxa biyaha loogu akhrinayaa 7 jeer oo suuratul faatixa waana lagu rusheenayaa tukihii labaad ayaa isagana yiri anigana waxa ii qabsoomay magaalo Hiblaayo waxa ay ahaan jirtay magaalo barwaaqo oo khudaar badan taala dadkuna aad ay u degi jireen hase ahaatee waan sixray hadda waa laga haajiray oo wax degan ma jiraan balse sida sixirka looga fakin karo waa ceelka ka gadaaleeyo buurta ayaa lagu akhrinayaa laba aayadood ee u dambeeya suuratul baqara iyo suuratu falaq iyo naas waana iska tagan shibrihii ninkii waa uu dhageysanayay intii oo dhan markii uu waagi baryay waxa yimid safarey ceelkii ayayna kor yimaadeen si biyaha uga dhaansadaan wadaantii ayay ceelkii ku soo tuureen hase ahaatee waxa ay ka warheleen wadaantii oo la soo tuuray mar labaad ay ku soo rideen sidoo oo kale ayaa loo soo tuuray markii saddexaad nin ayaa galay si uu u ogaado waxa ceelka ku jiro hadiiba uu galay waxa uu arkay nin ku dhex jiro waa uu isku naxay waxa uuna ku yiri ma insi baa tahay mise jinni insi ayaan ahay ayuu ugu jawaabay qisadii ayuuna uga sheekeeyey sidii ayaa ninkii lagu soo badbaadiyey safareydii ayuu raacay ninkii magaaladii ayaan ay geeyeen
waxa uu u tegay boqorkii ay gabadhu ka sixraneed waxaan uu ku yiri ka waran haddii aan gabadha sixirka ka furo maxaa la isiinayaa waxa uu ugu jawaabay waxa aad doonto ayaad leedahay ee ma awoodaa waxa aan rabaa in aan gabadha ii guuriso haddii ay bogsooto biyihii ayuu ku akhriyay faatixadii kuna rushay gabadhii isla markiiba gabadhii waa ay istaagtay oo ay is asturtay qof caafimaad leh ayaa ay noqotay waa loo guuriyay hanti badanna waa la siiyay ninkii waxa uu soo aaday magaaladii la sixray isagoo xaaskiisii wata sidiina waxa uu u yeeray gudoomiyaha magaalada kuna yiri haddii aan magaalada sixirka ka bixiyo maxaan leeyahay wixii uu sheegtay ayaa loo ballan qaaday sidii uu soo dhageystay ayaa uu yeelay isla markiiba magaaladii waxa ay noqotay barwaaqo waxa la sii guri iyo hanti aad u fara badan ninkii oo taajirka ugu sareeyay magaalada ah ayaa marti habeen u yimid waa uu gartay waxaan uu ku yiri ma ay garanaysaa aniga waan ku garanayaaye maya ayaa uu ku yiri soo matii laba wajiile ee ceelka igu riday igana tagay aniga waxaan ahay hal wajiile ayaa uu yiri laba wajiilihii oo yaaban ayaa weydiiyay sideed ku garatay heerkan waxa uu ku yiri sidii ayaa uu uga waramay laba wajiilihii maalintii ayuu sugi waayay waa uu baxay xilli dambe habeenkii ayaa uu ceelka isku tuuray waxa yimid jinni waana dhammaadka sanadka oo xilligaas ayaa ay yimaadaan sheekadoodii ayaa ay bilaabeen waxa ay yiraahdeen sanadkii hore dadkii ayaa laga furay sixirka waxa aan u maleynaynaa ceelkan ayaa lagu jiraa ee aan duugno ceelkan balaayo gebigiisaba sidii ayaa ay ku duugeen ceelkii laba wajiilihiina halkii ayuu ku qurbaxay god khiyaan ha qodin ku dhici doontida lama ogee waxaan rajeynayaa qisadan in badan idin ka mid ah inay ka faa'iideysteen isla markaana ay ka soo falcelin doonaan inay like saaraan share gareeyaan haddii aad ku cusub tahayna aad subscribe saarto fadlan subscribe saar gambaleelka furo qisooyinkeena dambe ee wanaagsan ee aan soo wadno si aad uga faa'iideysato waxaan rajeynayaa inaad ku xirnaan doontid Hormone Production haddaad ku cusub tahay inaad ku soo biiri doonto aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin jecelnahay waan idin ku faannaa walaalaheen